maanta suuqa gubtay bay doonayaan inay kuugu soo gabadaan marka shilinkooda ay iyagu aanay lahayn ee ay shalay xanibeen ugama baahnin mana doonayno fanaanad baa taafka Soomaaliga ku heesta qoraal kooban oo aad mar dhawto Facebook-aaga soo dhigtay oo ah yaan xamar anagu wax nooga yimaada ma doonaynina celin badan baa ka dhalatay social media maxaad uga jeeday marka hore qoraalka horta laba mid baa jirta ma dadka shicibka ah mise xukuumadda shicibka Ethiopia way noo soo gurmadeen gaar ahaan kililka shanaad aad bay u mahadsan yihiin wafdi bay noo soo direen dawladdu Djibouti wafdi bay noo soo dirtay Twitter-kiisa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Abiy waxay ku soo qoreen nacantii sida ay uga xun yihiin dhibaatada ka dhacday shacabka Garowe waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa inaan caawino dadkii dhibaatadu ka gaadhay waa shacabka ka hadlay waxaan shacabka Soomaaliya laftigood saas yiraahdeen waxna waa shacab oo ummadii waxna waa ninkii shalay adigoo u baahan oo ay tahay wax aan iyo ku siin adduunyada kale ku soo siisay waxa ninka midida kugu taaga iyo kugu lalijiye ma xanuun badan ka kugu lalijiye xanuun badan intay goosteen oo ay yiraahdeen maxay haydayeen deeqda annagana soo marto waa inay ogolaadaan madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka diiday markii hore ay yiraahdeen baahida maanta jirta shalay abaar baa jirtay miyad wax hadal ka maqashay waa maya maanta suuqa gubtay bay doonayaan inay kuugu soo gabadaan marka shilinkooda ay iyagu aanay lahayn ee ay shalay xanibeen ugama baahnin mana doonayno sida madaxweynaha iyagu yidina maxay haydayeen waanu ku taageersanoo ku raacsanay waayo ilaahi marka horeba naquudinay ayaa imikana jooga waxay yiraahdeen dawladdu lacagta ay halka ay dhig waxay yiraahdeen 3 milyan oo kale ayaan ku caawinaynaa haddaan nahay xukuumadda federaalka Soomaaliya ya riyo dib hadii leeyihiin baldabadooda ku qarin lahaa dadkoodii baa baahan oo maalin walba dhibaato darxumo silic oo haysta abaara haysta hasiyan dadkooda Soomaaliland waxba uma baahna laakiin shacabka Soomaaliyeed shalay kuwiidan caawiye baan nahay kuwii abaarihii idin la qaybsaday baan nahay wax allayaalo waxaan ka diidaynaa ma jirto laakiin markay dawladda noqoto ma baahnin mana doonayno saaray waxaad sheegtay Soomaaliya in markay baahnay Soomaaliland caawisay markay Soomaaliland caawinaysay shacabka Soomaaliyeed marbay ahayd maanta ay shacabka Soomaaliland baahiyiin adigu maxaad uga soo horjeedaa in iyagu markooda caawiyaan dawladooda ugu soo dhiibaan wixii ay u awoodi karayaan shalay toole dadkii u geeday dawlad ma ahayn waxay iga siyaasadaynan wari shalay toole dadkii u geeyay dad siyaasadeed ma ahayn dad shicib ay ahaayeen oo abwaan leh oo sheekh leh oo shariif leh oo shacab leh ay ahaayeen maanta markay taasi ku dhacday ay hantidii ummadda Soomaaliland maxaa Soomaaliland oo kaliyaata waxa afka Soomaaliga ku hadlo dhanba ku ganacsanayay suuqa ugu weyn baan waxa la waayay inay yiraahdaan waxaan maxay hayday soo furaya account-kii xidhnaa ee international ku siinayay Soomaaliland ayaa soo furaya nacamtiina naga xishoodaan bay ahayd ninka diidan jiritaankayga iyo qarannimadayda iyo qadiyadayda shilinkiisa uma baahan mana doonayo saaray baraadigo aragtidaada ku saleynaya xaaladda hadda ay Soomaaliland ku sugan tahay magaalada Hargeysa soo haboona in waxa kale oo inta laga tanaasulo hadda marka cid walba maanta wixii ay bixinayso inta marka laga qaato bal lagu eego xaaladaas sidii looga gurmin lahaa shacabka Hargeysa ee masiibada ballaaran ee dabkii ay soo gaadhay horta ilaahay baahidan dabooli kara waad fahantay 12 milyan oo maxay haydayeen 4 sano ka hor sanduuq lagu xiray baahi u ka daboolaya Soomaaliland ma jirto iyo 3 milyan oo shalay ku dhawaaqeen lacagta anigu walba shakhsi baan hoo ta ilaahay ba ka dhow ta ilaahay bixinayo ayaa ka dhow mana doonayno wuxuuda dawladda federaalka Soomaaliya iyadu halkay doonaysa Hargeysa laakiin Soomaaliland madaxweynuhu wuxuu yiri maya damayaanu leenay haduu xataa cid kale ha oran lahayd anigu totally wax halka 4 sano ka hor iyadoo dalka iyo dadkuba u baahan yihiin
maanta masiibadana loo soo hoosgeliyo ka yeeli mayno dabcan hadalkaagan dad badan baa markay maqlaan aragti ka dhiiban doona oo qaarkood odhan doonaan waxa weye sahri waxay kasoo horjeedaa in dadkii la caawiyo aragtidaa adigu maxaad iskaga difaaci lahayd wallaahi dee dadka la caawinaya marka horeba waa dad iimaan leehaayeen oo ilaahooda ku maxay haydayeen aaminsan waxaana ilaahay baa bixiyey laakiin 11 milyan oo loogu talagalay maxay haydayeen ummadda Somaliland oo dhan lagu caawinayay waxay ka taraysaa ma jirto waaba cuquubaba xataa hadii loo keeno waayo de lacagtan maxay haydayeen ay maanta leeyihiin waan soo saarnaa si ay soo saaraan kali garan waayeen waxay ku soo gabanayaan suuqan maxay haydayeen waa hene gubtay ayay ku soo gabanayaan laakiin maaha waxay Somaliland u uga baahan tahay ama shicibkeeda maanta maalkoodii ku waayay ay uga baahan yihiin ma jirto aad baad u mahadsantahay adiga mudan laakiin mid baan ku darayaa dad baa jira ka faa'iideysanaya maxay haydayaan suuqa waa heen dibka ka dhacay ama Somaliland ama Soomaali siyaasad ahaan uga faa'iideysanayo qabiileynaya oo qabyaalad ka dhigaya oo u badan dad qurbaha jooga waxaan oran lahaa dadkaas maanta maalinteedii maaha siyaasad maaha dad baa gubtay 2-3 qof nooga may warigi adba waxaad wariye u tahay inaad wax faqfaqdo laakiin iga heli maysid